barnaamijkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa arrinta garsoorka in xaaji caliya isku haystaan gudoomiyaha maxkamadda iyo golaha fulinta cidda dhabta ee ka dambaysa ma aha inay xukuumadda iyo fulinta iyo garsoor isku haystaan xirsi iyo waxa ka dambeeya gudidii ceelaf weyn oo doonaya in laga saaro in xaaji cali meesha si uu isku casilo oo loo keeno bartaasi nin ay iyagu wataan oo habar jeclaa oo gudidaasi wadato haddaba barnaamijkan si fiican kaaga daba geenaya barnaamijka sheergare meel fog gaarsii kuna soo birbirahayna bulsho sida YouTube iyo Facebook iyo TikTok ee Digital TV barnaamijkan ha ambanina waxa meesha ka jira update ka ana ku siinaya okay waxa jira maalmahan dambe shirweynihii ama garsoorka ee cadaaladda oo la qabanay waxa la isku haystaa laba qodob oo ah fulinta qabanaysa iyo waxa qabanaya maye gudoomiyaha maxkamadda caadi ahaan gudoomiyaha waxa jira saddex dhardhaar oo ay xukuumaddu leedahay ama dawladdu waa golaha sharci dejinta oo baarlamaanka iyo guurtida la yiraahdo golaha fulinta madaxweynaha iyo wasiiradii intaasa iyo sharci dejinta oo ah maxkamadda okay haddaba arrinta waxa soo hoos gashay xirsi gudidii habar jeclo gruubkaasi oo iyagu doonaya in ay helaan gudoomiyaha maxkamadda sare maadaama oo xisbiga wadani la isla geli karo maxay maxkamad xirsina wuxuu la cararay xisbigii oo waa ka dhammaan bedelay wax alle iyo wixii uu cir hore u magacaabay kuwa cusubna uu keensaday arrimahaasi haddaba waxay keensanayaan dagaal culus oo xisbiga wadani ka dhex taagan iyo ciro ugu dambeyn iminka dagaalkii loo qishay way jaamac gaabush baa meeshii fadhiyo mar horena u qishay maantana ka gaadhay cabdiraxmaan miskiin wiil okay haddaba barnaamijkaasaan si fiican kuugu faahfaahinaya okay haddaba saddexdan dhadhaar gudidan aan ku fahansiiyey shirgudo maxkamadaha iyo qolooyinkaasi gudoomiyaha maxkamadda wuxuu hayaa waa gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga kow waa gudoomiyaha maxkamadda sare laba waana gudoomiyaha gudida cadaaladda gudida cadaaladdu waa qolada ugu sarreysa ee la yiraahdo gudida cadaaladda waxa jirta haddaba fulintu leedahay wasaarad la yiraahdo wasaaradda cadaaladda iyo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka xeer ilaaliyuhu waxa weyn xeerarkiiba ilaaliyaan tusaale ahaan qof dambi gala ayaa lagu soo oogaya dambigii maxkamaddii baa la keenaya waa sida xeer ilaalinta taa qabata wasaaradda cadaaladuna waxay qaybisaa sida tusaale ahaan waxay u kala madax bannaan yihiin taliyaha ciidanka qaranka iyo wasaaradda gaashaandhigga oo kale wasaaradda gaashaandhiggu maxay qaybisaa lacagihii ciidanka nidaamkii shidaaladii hawlihii wixii bay kala wadaa laakiin amarada ma fulisadee taliyaha ciidanka qaranku tababarku bixinaya amarku bixinaya dagaalka kama qayb gashadii wasaaradda gaashaandhiggu sidaas oo kale haddaba wasaaradda cadaaladdu lacagaha maaragtay looyarka la qor waxyaabahaas ay qabataa shaqooyin bay leedahay laakiin caadiyan waxa weeye garsoorku uu madax bannaan yahay sidaa awgeed haddaba gudoomiyaha maxkamadda sare ayay sharci ahaan tahay inuu qabto oo maadaama isagu ugu sarreeyo arrintii markii uu yiri qaba shirkii waa laga hor yimid xeer ilaaliyaha guud baa warqad qoray oo yiri ma qaban kartid halka waxa la doonayay haddaba in xaaji cali in uu iscasilo oo la qoceeyo xirsi muxuu ka baqay haddaba xirsi wuxuu ka baqay maxkamadda haddii la isla galo oo uu xisbiga maxkamad galo cidda ka xukumasa inay tahay in xaaji cali oo isagu si cadaalad inta xisbiga eego laga yaabo ka xirsi taas ka baqaya muxuu sameeyay haddaba barnaamij mar hore odayaal buu daahadabadiisa soo taabtay buur madow iyo qolooyinkii gudidii bahasha iyo gudidii ceelaf weyn iyo qolooyinkii ictisaabkii wixii socda u yimid cabdiraxmaan ciro waxay ku yiraahdeen naadeerow nimankii suweerawal oo aan kula soo halgamin ayaad siisay wax badan oo inaad maxaan siiyey waxay yiraahdeen wasiirkii waxaad siisay arrimaha gudaha waxaad siisay maaliyaddii waxaad siisay kan waxaad siisay booliskii nimanka iyagu soo halgamay wax hagaagsan uma diibine maxkamadda sarahana dhaafine nasii laba ninoo wasaaradii arrimaha gudaha iyo wasiirkii maxay taliyihii gudoomiyaha maxkamadda sare laba ninoo subeera wala oo ciise muuse oo reer wacaysi wada haysan maayaane inaad ka nooga qaad cabdiraxmaan cirana kolka hore waxa kor loogu hayay arrintan xisbiyada in maxkamadda la bedelo waxa la doonayay horta inay kala shiilanto xisbigan kulmiye muxuu ku dambeyn doonaa haddii uu maxamed kaahin qabsado haddii uu isbedel kala yimaado sidii uu kasban lahaa isagoo loo faratay shan lahaa reerka subeerawal ayaa kor loogu hayo lama bedelin dhankan kalena qoladan habar jecla dagaal bay ciyaaraysaa ah inay isku hesho afar shay inay isku helaan
in saddexda xisbi doorashada 2030 saddexda xisbi ayuu ka noqdaan murashaxiin kulmiye maxamed kaahin xirsina ninka la yiraahdaana uu ka noqdo wadani dee in xaashino ku yahay gudoomiyaha commissionkiina nin habar jeclo uu noqdo inankii Axmed Siinaay sodonka u ahaa dhankan kalena uu noqdo ninka la yiraahdo maxkamadda sarana uu noqdo gudoomiyaha maxkamadda sarana uu noqdo nin habar jeclo ah marka waxa weeye la iskaba seexdo dee waayo saddex nin habar jeclaa kii la doortaaba habar jeclona yiraahdaan hurdo dheer la galo tii dagaal baa soo galay marka kaahin waa la isku haystaa weli shirweynaha ku xidhnaanaysaa inta lagu wareejin doono iyo beeshaas weera waliga sidii xisbiga ula wareegi lahayd dhankan kalena ninka la yiraahdo xirsi waxa soo baxay warar fara badan oo qolooyin leeyihiin Cabdiraxmaan soo noqonaya qolo kalena ay leeyihiin nimankii ciida gala iyagu waxay sameynayaan ajenda ah sidii xirsi meesha looga qaadi lahaa maadaama habar jecla imika cod laga sugay oo habar jecla nin baa u sharaxan oo waa in xaashayay haddii uu xaashuus sharaxay yahayna doorashadii hore xisbi baan urur baan u soo saarno xisbi baan ka dhignay haye iyaguna madaxtooyadii bay nasaareen laba ninkii Muuse Biixina uu inala dileen deemka waxba isku bay ka yahay jeegaan ma naan gelin oo haddaan jeegaan galno dee xisbigan may sameysteen waxa la sameysan lahaa xisbigan wadani baa la isku bedel lahaa way xirsi codma wata marka waa keligii in xaashiba ka dhadhow taas ka baqaya si aanay haddaba xirsi wuxuu rabaa inuu beesha garxajis iyo waxooga isla hela habar jeclaa uu sidaa ku noqdo madaxweyne okay xirsi marka arrinta meesha taalba waxay tahay xaashina wuxuu rabaa in meesha uu habar jecloo dhan isagu isku dubarito ina kaahinna laga tuuro waxyaabo fara badan la kala gurto marka aduu waxoogay meeshii in laakiin xirsi ma rabo buuqaasi meeshii ka jira iyo dagaalkaasi waxay noo cadeeyay kamid ah Cabdiciis Cagaweyne waa ka yidhi adeer meesha khadar baa gudoomiye noqonay murashaxa cirka ku xiga ah halkaana wuu noo cadeeyay waxa kale jira loolan Cabdikariin Axmed Mooge iyo ninka la yiraahdo khadar oo iyagana u dhaxeeya oo la rabo sidii xirsi looga tuura xirsi wixii uu fahmay uu la cararay bahashi wuxuu ka degay hotel Casood iyo meelaha halkaas uu soo joogaa wax alle iyo wixii cirkeelay uu wada tuuray golo dhaxo oo isagu maamulo si haddii uu sidaa u soo istaago 1 2 3 loo codeeyo isaga maxkamaduna u xukunto laakiin bishardi waa ina maxkamadu noqotaa nin beesha habar jeclaa taasuu dagaalkay ku jira cirro miskiin arlimo ogid wuxuu moodayaa inay xeer ilaalintii sharciyadii waxaan islaafsan yihiin odaygii gaabushahay groupkii baa yimid waxa lagu yiri inaan qoladan isku taataaban in xaajacalna waxaad ku tiraa xal la gaadhay xilligii cadaaladda la qaban jiray ramadaanta fasaxa caadiga shirweynihii cadaaladda caadiga ah la qabto markaana adaa qaban doona laakiin iminka nagada xeer ilaalihii guud iyo labadii gol iyo wixii oo dhan waa la isku keeno hawshii hoos baa la dhaqay okay halka marka iyagii waxba ku dhacay laakiin ujeedku wuxuu ahaa in xaajacali meeshii laga qaado marka la juqajuqeeyo is asilo maadaama uuna u baran intii la haystay intii uu maxkamadda haystay cid farafalaysa tusaale Muuse Biixi muu geli jirin muu faragelin jirin maxkamadaha iyo golayaasha midna kaliya wuxuu ku eekaan jiray golihiisa fulinta haddii wax uu meesha geystay laga xukumana muu ka daba carari jirin tusaale qof la xiray haddii maxkamaddu sii deysa haddii waxa soo dhan kamuu daba tagi jirin maxkamaddu way madax banaanayd golayaasha kalena way madax banaanayd muu faragashan jirin laakiin qoladan durba farafareyn bay ku bilowday sidaas waxa la rabay marka in xaajacali markuu is asilo qof ay wataan habar jeclaa yiraahdaan maanta na dhaafin maysi oo yaad siin garxajis ma siin kartid madaxweyne weeyi haddii habrahan la siinayna habara wal wasiirka arrimaha gudaha weeyi annagaana u xagaagsan la siine nagalama dhaqaaqday sidaasay horta doonayeen tiina way u suurta gali weyday gudidii ceelafoyn ma habar jecloo dhayaan israacid gudidii ceelafoyn oo qoladii salaadiinta ictisaamkii iyo buurmadow iyo gruubkii ay wataan sidaasay markaa ay ku fashilantay laakiin ninkii xirsi meeshiisii wuu dhistay golihiisii dhexe wuu dhistay wixiisii wuu isku dubaritay hawshiisii wuu dhaqaajiyey bannaan buu dhigtay
halkaa markaa loolan adag oo maxkamad la isla tegi karo oo xisbiga wadani qaraxa ka dhaca uu ka darnaan doono ka kulmiye ka dhacay ayaa ka dhici doona laakiin miskiin xirsi tulkii ma wato xisbigana de kulli reer baalo cid baalo kan kalo muuji maalinteedina falanqayn doona barnaamijka sheergale meel fog gaarsii aad iyo aad baan kuu salaamaya